fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo dheh videoga like noo saar haddaa hore noola joogtayna soo dhawo waad ku mahadsantihiin daawashadiina quruxda badan aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waqtigiina qiimaha badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaashin Caaisha isku soo noqdo wanaagsan insha Allah soo dhawaada maanta waxaan wadanaa chicken qaabka ugu fudud aanu isticmaalo adeeg yacniga u samaysto baan la wadaagayaa noocyo badan baan u sameeyaa laakiin qaabkan waa qaabka ugu fudud kuleyba insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan digsigaas ku gureynaa kadib waxaan ku dareynaa cusbo yar kadib biyo ku dareynaa waa soo dhaqaynaa si fiican baa soo dhaqnay okay isagoo dhaqan oo diyaar isla digsiga baa dib ugu soo celinaynaa kadib waa ku soo dhamaystiraynaa waxaynu ku darsanaynaa cusbo iyo biyo dabkaan isku saaraynaa insha Allah adigu muddo 10 daqiiqo ah baa u deenaynaa haddii aad ku badi sidoo kale yacni uu ka kala go'ayaa waa kana dabka saarnay muddo kadib waa bisil yahay waa ka soo miirnay biyihii halkan waxaa igu diyaara halkan bahaaraad baa igu diyaara bahaaraadkaasi waxa weeye chicken masala xawaashiyo soo jirjira filfil iyo cusbo sidoo kale halka waxaa yaala yogurt caadiga ahayd ee supermarketyada laga helayay maahan maanta waan ka soo waayay laakiin waxaan u isticmaalayaa caanaheena garoorka ee caadiga aad bay u dhadhan fiican yihiin wallahi marka kuwa loo eego iyo kuwan badanaa anigu kanaan isticmaalaa marar dhif maahane aad bay u dhadhan fiican yahay wana macaan yahay kuwa kale dhanaan yaroo beela ab leeyahay okay marka cabaar isku walaaqnay chickenka ku gurguranaynaa si fiican baa u dhexgelinaynaa jarka liin dhanaanka ana ku tuujinaya insha Allah waa ilaabi cafwan isku soo dhameystiran doonaa kadib waxaan sameynaynaa halkaas waxa ii yaala burkaas markaan alaabtan isku si fiican u galgaliyo baan burkaas si fiican isugu gureynaa si fiican baa ugu walaaqaynaa si isku dhex galo oo u qabsado maadaama uu xoogaa aad u qoyanaa okay saasuu diyaar inoogu yahay shiilitaanka bis baa ka dhiman halkan saliid baa inoogu diyaarsan way karkartay kululaatay waa ku guranaynaa insha Allah saasa ku wada dhammaystiranaynaa oo kusoo wadaynaa wakana isagoo bislaanaya weli ma wada guduudan laakiin gudguduud baa soo galay waa rugruganaynaa insha Allah okay wakan saanu diyaar ku yahay waa bisle okay saanu kusoo baxay waxaan jecelahay rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allah saanu diyaar ku tahay qadadeeni maanta chicken iska fudud waqti badan aan ka qaadanay weeye dhanaan macaan intaba isugu jira soo dhawaada insha Allah waa ku mahadsantiin daawashadiina